astaamaha lagu garto ruuxa jacaylka dhabta ah uu haleelo ama uu asiibo. jacaylku waa rabitaan ku beerma qofka, waxaana qof kasta oo wax jecel lagu gartaa astaamo gaar ah oo inta badan soo ifbaxa xilli dambe oo uu jacaylku daara ka dhista qalbigiisa. hase yeeshee qofna ma jeclo in si sahla lagu ogaado sirtiisa jecel, oo waxa uu doonayaa inay isagoo keliya ku koobnaato. haddaba astaamaha lagu garto qofka wax jecel aad ayay u fara badan yihiin, laakiin waxaan muuqaalkeennan ku xusi doonaa inta aan isleenahay way ugu muhiimsan yihiin. ugu horrayn, waxaa lagu gartaa inuu hiyi kaco marka lagu soo hadal qaado arrimo ku saabsan qofka dhiggiisa ee jecel yahay, waxaana wejigiisa durba ka soo ifbaxaya dareen farxadeed iyo muusood, wuxuuna xilli kasta sii jeclaystaa ka sheekaynta iyo falaqaynta arrimaha ku saabsan qofka uu jecel yahay. waxa uuna mar walba ku dadaalaa ilaa waqti inay ka sheekaystaan ama laga sii sheekeeyo ruuxa uu jecel yahay si uu ugu raaxaysto hadalhaynta lamaantiisa ama lamaanihiisa. haddii wax xumaan ah laga sheego, markiiba waa uu xanaaqayaa oo ka damqanaya, waxa uuna bilaabayaa ama isku dayaa inuu difaaco ama uu ceeb asturo. haddii uu awoodi waayana goobta ayuuba isaga tegayaa. waxaa kale oo astaamo lagu garto qofka wax jecel ka mid ah xiise gaar ah uu mar walba u haayo la kulanka qofka uu jecel yahay. laakiin layaabka jacaylka lagu arkay ayaa waxa uu yahay qofkii aad jecleed ee aad ku haminaysay la kulankiisa ayaa qacda hore markii aad aragtaba aad ka naxaysaa muuqaalkiisa, oo waxa aad dareemaysaa xanfafkaasii asiiba bu'da hoose ee caloosha. mararka qaar waxaad iloobaysaa qorshayaal badan oo aad rabtay inaad uga faallooto ama aad kala tashato, oo waxaa dhacaysa inaad uga sheekayso sheekooyin caadi ah kuwaas oo aad isku dayaysa inaad kula haasaawdo qofkii aad jecleed, oo aadan isla markaasna qorshayaal muhiim ah aadba kala hadlin qofkii. shakhsiga wax jecel waxa uu mar walba tixgelin iyo karaamayn gaar ah siiyaa qofka uu jecel yahay, mana ogolaanayo in saxar qalad ah ama dhibaato yar soo gaarto. haddii isagu dhibaataysan yahay, tiisa uma muuqato ee qofka uu jecel yahay midda haysata ayaa u muuqato oo la weynaato, tan isaga haysatana umaba jeedo. qofka wax jeceli wuxuu u dhagan nuglaadaa qofka uu jecel yahay, una dabacsanaadaa, deeqsi ayuu u noqdaa, u naxariis falaa mar walba isagoo isku dayaaya inuu qanciyo jaceylkiisa.